waxaa halkan la soo bandhigay dastuur shaqadiisii socoto laakiin dastuurka waxaan u malaynayaa inaan nolo caddeeyo ma dastuur Soomaaliyeed ba mise waa dastuur only koonfur Soomaaliya ka socda weeye xagee baanu ka soo galnaa caqabad baa la sheegay waxaan qabaa caqabad ka weyn Soomaaliland maqnaanshaheedu inaanay jirin saddex meelood meel ayaan ku matalanaa baarlamaankan iyo Soomaaliya oo dhan lagama hadlin mudana gudoomiye waxaan doonayaa cabasho ka muujiyo gudoonka ana ula imi arrinta muuday ku xigeenkaagu hadalka ma lahayn annaka lahayn meesha maqan annaka halkan u fadhina arfaareedana annaka ka hadlayna cid kale kama hadli karto waxaan doonaynaa baarlamaankan in la soo dhex dhigo arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadaladeeda in baarlamaanka lagaga falanqeeyo la soo bandhigaan doonaynaa wada hadaladii waxaad moodaa meeshii ugu xumaadeen marayaan dastuurkan markaa imika la sheegaya in loo cadeeyo ma koonfur baa mise waa Soomaaliland leena caqabad ahaan looma sheegin talabaad wada hadalada marka la tagayo Puntland marka la tagayo Jubbaland afaareeda Hirshabeelle xildhibaanada matalaya mas'uuliyiintooda ayaa loo diraa annaka halkan marka dhibaata ka dhacdo Soomaaliland iyo halka wada hadaladooda waana la kormaraa diyaar uma nihin inaan ogolaano arrinta maanta kadib waxaan doonaynaa haddaanan annagu keeni karin dadka Soomaaliland siyaasiyiinta halka jooga annagu shaqo doon ma nihin ama in la sii daayo ama inay yimaadaan Soomaaliya annaka in la weydiiyo haddaanan keeni karin waa inaan u diyaar garoonay inaan ka baxno annagu markaa baarlamaanka xukuumadda iyo hay'adaha dawliga oo dhan لأنه شقدون منهن هلك waxaan u joognaa madaxda Soomaaliya inaan caqabad ku noqono baa markaa Soomaaliland caqabad ku noqono Soomaaliya waxaad moodeen noqonay annagu siyaasiyiinta ruuqooyi halka jooga waxaan doonaynaa masiirka wada hadallada Soomaaliya inaan hormuud ka noqono annagu waa ma sabta joogana haddaan keeni karin inaan u diyaar garoonay inaan ka baxno